walba ay tahay 12kii iyo dheeraad imanka ay tahay waxaa howlgalkan ka qayb qaadanaya guud ahaan maamulkii dawladda hoose oo horkacayo maayarka caasimaddu waxaanu adeegsanaynaa buufin iyadoo qorshuhu yahay in guud ahaan caasimadda la wada gaadho caawa waxaanu taargad garayn doonaa downtownka gaar ahaan meelaha muhiimka wadooyinka halbowlaha ah iyo suuqa gobonimo oo aan ku dambayn doono haddii ilaahay idhaahdo guud ahaan hangarrada khudradda iyo caanaha iyo hilibkaba iyadoo suuqaasi yahay suuqa labaad ee caasimadda oo aan hore u buufinay suuqa waaheen ay ku xigtay sariibadda idaacaddu caawana ay insha allahu tacaala aan gaari doono sariibaddaas ama suuqa weyn ee xisbiga ama suuqa gobonimo waxaa si rasmi uga bilaabantay caasimadda Hargeysa buufintii in nadaafadii laba jibaaray taasoo la isticmaalayo chemicals ama maadooyin casri ah oo ka mid tahay chlorine oo ka mid tahay thermal focus oo ka mid yihiin waxyaabihii detergents ka oran jiray ama nadiifiyaasha oo aan iskugu darnay cabirkooda ugu wanaagsanaa ugu sugnaa si ay u nadiifinta iyo hawsha nadiifinta iyo fayadhowrka si fiican uga qayb qaataan waxa caawa si rasmi ah u bilownay ololihii buufinta caasimadda hore uu jiro waxaanu ka wadnay meelaha suuqyada ay dadku isugu imanayaan iyo meelaha khudaarta lagu iibiyo waxaanu buufinay sariibada weyn oo ahaan sariibada idaacadda laakiin kan waxa weeye waa mid kii hore uu ka duwan yahay waanu ka casirsan yahay waa arkaysaan daawooyinka la isticmaalay labada sunnada la isticmaalayay kan waxaan ku dhamin doonaa caawa insha Allah magaalada meelaha suuqyada dadweynaha waxaanu leenahay waxa caafimaad qabkeenu ku jira inaan guryaheena fadhino indhihiinu way arkayaan waxaanu saacadaas 12 habeenimo ah oo dadkana ku nidhi ha seexdaan oo 12 meheradaha la faaruqiyo aanu ka shaqaynaynaa in aanu magaalada dhexdeedii buufino road number 1 iyo road number 2 waxaana wax joogsanayo caawa quraan maaha muddaanu buufin doonaa haddii ilaahayda waa ka hortagii dhankiisa sugan halkaasi waxa ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko sidii aan hore ugu baaqnay waxa ahayd xalay toole in buufinta la bilaabo magaalada waxaan leeyahay shacbiga dhiga adaygu wuxuu keeni doonaa dhibaatooyin badan inagu waxa ugu badan inuu qabanaynaa waa koortag inaynu ismaqallo gudigeena qaran gudiga heer caasimadeed gudiga heer gobol oo dhan waxaan leeyahay dadweynaha in la ismaqlo dawooyinka lagu buufinayo waxa weeye inta hore waqtigu nagu dheeraado mooyaane in ku filan imka waanu haynaa insha Allah taala in kalena waanu rajaynaynaa waxaan leeyahay ciidanka Blaiska ee caasimaddu dhamaantii wuxuu ka hawlgali doonaa makhaayad kasta iyo meel kasta lagu qaylayo waxda ka seeg waaweyn oo maanta iyagoo yaacaya jaadkii laga dul kicinayo waa hadaynu ismaqli weyno waxay noqon doontaa in xoog la isku muquuniyo Blaisku xaq bay u leeyihiin inay meerad kasta oo lagu qaylayo intay galaan ay ka soo daarayaan waayo marka laga hadlayo caafimaadka dadka iyo badqabka ummaddu waa nabadgelyada ugu sareysa